إنسانكو هدو عقل جيس وكفى إيدي سواي حيوانك وكليته حيوانك محل الله ظلمي عقل ملئ حيوانك أيو كسيه سيئا وحا شيخ ليلة هذا عبد الله التليدي كتاب وقري أن ليلة هذا نصب الموائد وحا أكقري قصة عجيبة نين فقيها ودادك فقيه قرني أيا الله يارسي نين ميت نين دنتي ميرو ورميت بماشي يليك على ميت بديل يمت markii uu albaabkii u xidhay oo meydkii ka qaaday kafankii maradii dultaale oo ka qaaday waxa dib u booday wuu argagaxay wuu naxay muxuu la booday oo la argagaxay waxa uu leeyahay uqsimu billahi alazim ilaahi baan ku dhaaranaya waxaan arkay meydkii qofkii oo fi suurati khanziir وجهيسي وجهي دوفار كأكله خنزير وجهيسي أنت كلا واقف عادي جزء فيسو لكن وجهيسي بوحى ويسكب بدل وامح وجه خنزير بيسكب بدل خنزير وان أرجع حبي وان بحصدي وان حي والضفار يعني وقف كان عاين وقف كاس وقف ضفار على هذا صورة دي وح ميد بو إلهي سبحانه وتعالى قفك أبدلي maxaa dhacay waxa uu yidhi haweenaydiisii baan weydiiyey odaygaag muxuu samayn jiray waxa ay tiri sixirka ayuu samayn jiray kitaab qur'aan ayuu meel ku aasay ciid buu ku durrogay oo ku dulkaasi jiray acuudu billah kitaab qur'aan gaalimadu xaggaasay ka gaadhay insaanku xayawaanka uu ka hooseeyaa markuu caqligiisa uu ka faa'iideysan waayo markuu naftiisa uu daahiri waayo xayawaanka uu ka hooseeya khinziir ayuu noqday qofkii kitaabkii ilaahay inoo soo diray kitaabka qur'aanka ah ay siigadu xagga ku dish ayuu ka faa'iideysan waayo kitaabkii buu aasay oo ku dulkaadsiya waliba waa kitaabkii oo ilaahay lahaa innahu ladhikrun laka ولقومك وسوف تسألون كتاب كني نبي الله شرف بكويه وناك بكويه أذيك أي قوم كاغا وناك بنية إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون شرف بنية وناك بنية وكتاب كي لا يسكت دهيري لا يسكت تربية ديني نفط لقد دهيري أي إنسان كي آسي وكوكاتش إنسان كني wuxuu isku dahiraya waa cibaado iyo khayr iyo wanaag maalinka uu ka tago cibaado iyo wanaag iyo khayr uu ka tago qalaq buu ku noolaan cidhiidhi buu ku noolaan nolol wanaagsan ma helayo ilaahay waxa uu leeyahay alaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub qalbigu wuxuu ku xasilaa ma aha lacag badan xoolo badan ma aha haween qurux badan ma aha wuxuu ku xasilaa dikrigu ذكرك إله قرآنك نبي قول له صلي عليه الصلاة والسلام ذكرك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر آخر الحسوسة كاس الإيمان كهلي كاس قف كن نقن سوتش هذا أتكون نقنس لكن مالك أتكتكتي نلرشاد جبي وحى يسكب بدلي ضنكا عديدي إلهي وحى إليها ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إلهي وحى إليها ننك آيات كيغا كجيست ذكرك كجيست نبيك إنه كديدا عليه الصلاة والسلام اسكديدا آيات كيغا كجيست كونيغا آيات كيغا قرآنيغا أكجيست نلش الدنك وحا كلية هاي معيشة ضنكا نلو قراد بكلية هوين إذا أقول قرحة بدنها بقبو
guriga ugu fiican viilada ugu fiican haba galo baabuurka ugu quruxda badan haba wato cidhiidhi buu ku noolyahay dank qadhaadh waa isdilaya kinin buu habeenkii ku seexanaya wuxuu ku riyoonayaa waxyaalo kale argagax buu ku jira wuu sasayaa maxaa yeelay khushuuc ma hayo xasilooni ma hayo noloshiisa oo dhan waa qadhaadh aakhirana ilaahay waxa uu leeyahay waxaanu keeni isaga oo indhala markaasuu ana rabbi lima xashartanii acma ilaahu meeshan maxaad ii keentay aniga oo indhala waqad kuntu basiira adduunka markaan jooga waan indhaqabay ilaahay muxuu ku oran qaala kadalika waa sida atadka aayaatuna aayadahaygii baa ku yimid laysku dahirayey taskiyatu nufuus lagu helayey laysku barbaarinayey ayaa ku timid atadka aayaatuna fanasiitaha waad iska ilowday waa lagu waashaabaad tiri qur-aanka waxaad tiri qur-aan baad nala daba socotaan qur-aanku waa laga tegey atadka aayaatuna aayadahaygii baa kuu yimid nebi moxamed baa kuu yimid sala allahu calayhi wasalam waad ka jeesatay diintii baad iska diiday atadka aayaatuna fanasiitaha waad ilowday maad akhriyin kumaad waan toobin fanasiitaha wakadalika alyawma tunsaa adoo indhala iyo naarta lagugu turi oo lagu ilooday buu ilaahay leeyahay maxaa yeelay aayaadka kamaad jeedsa baabuurkaad doontid wado gurigaad doontid gal dikriga ilaahay aayaadka ilaahay maalinka aad ka jeedsatid yaa waylak hoggaaga